بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني ما لا والله قفي عي قف بني آدم إنه يسوق سكور ربه ولقي سكور ربه إنه تعنولا يعني بدن با ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وأي ما دين وكورة سنة ولقينا ورما بحين ولقينا تي في متجين واحد ضد كود داوضا مساجد داوم بك قاتنا عشان ده هي الله ده waxaan salaa cali markuu iska warramaad ka dambaysi calina diidin uu warramo marka wax badan oo sheego runtii ay ku kordhinaysaana ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anu raga halkan fadhiyo oo ka wada da'weynaan u malaynaya sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaj ismaaciil haruun baa la yiraahdaa reer wadaadaaba ka dhashay aabahay xaaji baa uu ku magac dheeraan sheekhu ahaa awogay aw haaruun baa looran jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa looran jiray reer culamo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaalkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliyeed dhalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaan walaalaanay nin quraan kaga dhashay cadan intayadii kalaba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada ya tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo bar meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladda soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwado waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culamada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 21 sannadood dambe burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969 68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulkaa la sheegay jiray hebelada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayn hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furayn diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamaroo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego dhowr iyo 70kii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaaleynka la yidhaahdo jalaaleynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahayn jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yacni kutub ma taallo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro aad tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray على كل حال وحنا قد الله يعني أنت مثل ما يحوي جانس كايدك وهيستان ما أولين واقع جانس كان هاي كتبته باقي لا جيب كسيدة كتبته ملك استلوي بينيو أي كتاب أبو بحتاج هليسو إلكترونيكالي شامل سو داونلود قرينيسو ودوري طبقونو مجلد يكون جرا يعني جانس كسيدة تاني قفكو ريسيرش سمين كره وحبحثي كره وحباري كره واقع ما أولين laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo inay ilaahay wax ugu dhawaadaan ay ku jirto marka anugu qadiyada aan jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe na dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo uu daadhiga waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaan un yurub ka hortegayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyey waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badane hore ee 90yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare la yiraahdo Somali Welfare Organization ayaan ku war labadii toddobaad maalin wax maydeen akhriyay oo ka sayraadeen ha niman carabaha ka tagay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla al-iimaan arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiyya inaan ka warramo
nin dhallinyaraa baan ah hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ileen 14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay malaa ninkan sheekh weyn waa sheekh weynna marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku idhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekha ma fadhiyo wax akhriya ma iska tag xagga dambe la fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan iminka ay u badayn uma badnayne VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin nin cabdillaahi xuseen kaahiye la yidhaahda iyo inaa loorane la yidhaahda iyo axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan waar waa sidee dee waxaana iibinaysaa waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaa iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiyona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan uu dadka weydiinayana malaa inuu isagu ka jawaabaa bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum